السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، رمانتين وحن رادينينا فرحة هرمر هانتي قلبي قفك أو حسيرة حقيقة وحيتاي إلهي سبحانه وتعالى آيات قرآن وحو كل يهي لئن شكرتم لأزيدنكم. haddaad igu shukrisaan nicmada aan idin siiyay waan idin ziyaadinayaa. qof walba oo annaga naga mid Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu siiyay nicmo. indhaha aad wax ku arkayso waa nicmo, lugahaad ku soconaysana waa nicmo, gacmahaad wax ku qabsanayso waa nicmo, dhagahaad wax ku maqlayso waa nicmo. nicmo ka weyn ma jirto islaamnimada iyo caafimaadka iyo caqiidada. intaas hadaa haysato wixii aad raadaysaa waa wax ziyaado ah. ziyaadadana waxay ku imaan kartaa nicmada asalka ee uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyay inaad alle uga mahadnaqdo. tusaale, maanta waxaa jira qof cuuriyana, qofkaas hamigiisa ugu weyn wuxuu yahay hadduu malaayiin dollar helo in lugihiisa wax u soo celiyo oo ku bedelo lahaa. dad ayaa indhoolo ah oo indho la'aan ah. dadkaas hamiga ugu weyn iyo waxa ugu qaalisan maanta codso haddii la dhaho ay codso lahaayeen waxay tahay inay dhihi lahaayeen aragga iyo indhaan wax ku aragno ayaan codsanaynaa. laakiin adiga Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxa soo dhan uu ku siiyay. Ilaahay hadduu ku siiyo awlaad, Ilaahay ku shukri. waxaa jira dad awlaada Ilaahay subhanahu wa ta'ala uusan siinin una hibaynin. macnaheedu ma ahan inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u waayo, laakiin waxaa loogu talagalay inuu ku cibro qaato qofka Ilaahay nicmadaas uu siiyay. midka indhoolaha ah Ilaahay wuu awoodaa inuu indho siiyo oo arkiisa u soo celiyo, laakiin adiga lagugu tusaa ina Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku shukriso oo aad isfiiriso. maanta indhaha isku qabo, ma arki kartid waxa kuugu dhow, ma arki kartid. waxaad codsan lahayd ina indhahaaga arkaaga dib ugu soo celiyo. maanta nicmo ka weyn iyo horumar ka weyn iyo farxad ka weyn ma jiro caafimaadka aad haysato. haddaad ku shukrisana hantida way imaanaysaa, horumarkana wuu imaanayaa. sababtoo waa ballanqaad Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ballan qaaday adoomankiisa. nicmada oo haysto qofka hadduu ku shukriyo in uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala u ziyaadinayo. sidoo kale waxaa meesha ka baxayso walwalka iyo cabsida iyo argagaxa iyo waxa waaye tiiraanyada ku haystay. markaa ogaato dib isku fiiriso kuwa ka hooseeya ee ka liita aad fiiriso waad ku cibro qaadanaysaa. waxaadna leedahay alxamdulillah, Ilaahay nicmo fara badan ayuu ii sameeyay, Ilaahay nicmo fara badan ayuu ii hibeeyay, Ilaahay wax wanaagsan ayuu i siiyay. midaas ayaa ogaanaysaa. ha fiirinin kuwa ka sareeya ee Ilaahay hanti fara badan siiyay. waxaa laga yaabaa qofkaas hantida badan haysto in nicmooyin aad adiga haysato uu waayay ama uusan haysan. sidoo kale Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay man asbaha aaminan fi sirbihi mu'aafiya fi jasadihi wa 'indahu quuta yawmihi fakaannama 'izat lahu ad-dunya bi asriha. qofkii waaga u bariyo isagoo ammaan ah oo ammaan haysto, uusan dhib iyo dagaal iyo madaafiic iyo rafaad ku soconin, meeshuu degan yahay ammaan ay ka jirto, nafsadiisana ku aamin qabo cid ceersanaysa iyo col aanan haysan. qofkii waaga u bariyo caafimaadna jirkiisa haysto oo jirkiisa wax dhibaato ah ama xanuun uusan qabin oo caafimaad qabo, sidoo kalena maalintaas wixii oo cuni lahay ma aha waligiis wax cuni lahay maaha. maalintaas وقوت وعنده قوت يومه وقوت يومه maalintaas wuxuu cuni lahayna uu haysto فكأنما حيزت له الدنيا بأسرها. qofkaas wuxuu la mid yahay qof adduunyada oo dhan hortiisa la keeno loo soo koobay oo la siiyay, wax ka maqan ma laha. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam hawadiisa kuma hadlo, waxa uu ku hadlaa waxay tahay waa wax sax oo xaqiiqo ah oo waxa waaye wahyi ah. marka waa run, qof hadduu amaan haysto, meelow saxda haysto, wuxuu cuna maalintaas haysto, caafimaadna uu qabo, adduunyo dhan wuu haystaa. waxa ka maqan waa wax yare. Ilaahay ku shukri, Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu ku siinayaa. la in shakartum la azidannakum. haddaad shukrisaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuu idin ziyaadinayaa. wala in kafartum, haddaad jizaarnimo samaysaan oo nicmada Ilaahay ku kufrisaan oo ba'ay iyo hoogay ku haysaan, Ilaahay taa haysato ka qaada. hadduu Ilaahay subhanahu wa ta'ala caruur caafimaad qabto ku siiyay waa nicmo. dadaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala caruur la'aan dhigay amaba caruurtu waa la siiyay laakiin waxaa loo hibeeyay
caruur xanuunsan ama curyaan ah oo sidaas ku dhashtay ama indhoolnimo ku dhashtay ama waan aragnay isbitaalada taga booqda wallahi waxaa ogaanaysaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala nicmo ku siiyey weliba nicmo aad u weyn intaas qofkii aamina qalbigiisa gashtaa wallahi wuxuu helayaa farxad iyo sacaado laa yaclamuha ila allah ilaahay mooye cid kale aysan ogeyn wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وتصفى الحياة بنور